KNN war waadigan kashkashlaynee kelmadaad mar tiraahdo midii kaabil ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii Kalamaan ee kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi no dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kuroodanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn hadduu kaagu shaariya ma kayga niqatala dadku waa Kalamaan kulmiyana midaysay maxaa tiiriya may erti midaysay maahino si aad u hesho xubinta Kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan KNN bembeenta dhafe ballantiin bayaan u yeele bahow gadaaye barqa adeeya la bursahaadadkii oo barqa adeeya la bursahaadadkii ma jirto abow hanno war xarfaanay ma jirto dibaan loo dhigay Cali Masaarka Axmed Madoobe mudada la qaban doonana lama shaacino dawladda Ilaahay ka daasho ayaa la sugayaa baa la yiri xaflada la baajiyay faraas ka baxdiga nabadii nolol waa laga qarinayo sheekadan war nabadii nolol lama gaari karo sidaasna waa ka aqal badan tahay maantana warqad ay soo saartay waxayna tiri duulimaadkii Kismaaye wax la joojiyo haba yaraatee ma jiraan qof kastana maalintii uu doono ayuu bixi karaa laakiin shuruudii kaliya waxay tahay diyaaradii baxaysa 24 saac ka hor inay soo diiwaan geliso warnamiya umaysiin warsaday hoob go'aan ma ka saarna ereen ashraafti awjinay ma inuu lugoyay warqeylada maalmahan socotay waa qandada doorashada 2021 war doorashadii 2023 laga dhigay iyo 4 meelahaas war adeero dastuurkii wali ma sidii malmaluuqdii kaga jira basaayimka leeyahay waxba la dooranayna wareedaha shirlaawo maalintii saaxa jira miyaa la joogaa waatan qowdhanoo yimid war adeero shirlaawaha sheegaysa arbacadu loo duma war ninka ma guriya dume war meeniyo uu noo waranyi war ma haysiine hadda ka hor nin waalan oo ku jira isbitaalkii Lansaleeti qaybtii dhimirka ayaa wuxuu u jeeday nin banaanka socdo faraha taagtaagay oo keligii sheekaysanaya waa ka soo daba orday wuxuu yiri saaxiib farag taagtaagaani waa halkan ka bilaabay iska jooji saaxiib marka waxaan u socdaa doorashada dib u dhacaysa waa halkay waalida Soomaalidu ka bilaabatay marka cid kasto damacaasi ku jiro ama ku riyoonaysa waxaan leeyahay iska jooji war qof kasto damacaasi ku jiro Shariif la hadlay maalin dhaweed markuu hadlay wuxuu yiri waad ogtihiin waxaan ahay wadaad jabhada markaan xilka ka dagayana waxa la ilaaha dadkan inta dhinac iska kuusto niyahow joog oo hor u soco wali xilka sii hay laakiin anigu taa waan diiday sababtoo ah dimuqraadiyadda Soomaalida ayaan ilaalinayay xilka waan jeclaa marka wadaad jabhada meeshii uu ka kacay nin qurbaha ka yimid asagoo boorso kaligeeda wata inuu isku dhijiyaa waa midaan soconayn buuqaaga miisbata reerku waa ku soo buriha bacdii madoobeeda banaanku ku taale buuqaada miisbata reerku waa ku soo buriha bacdii madoobeeda banaanka ku taale buufle war wadankan foorba intifaafi beesha caalamka isku leh cid muddo ku darsan karta malaha hadday ugu badatana 2 bilood raacaysa intuu buuq socday isdaji anigu wadan nabad iyo nolol lagu aamini waayay foorbantifeef iyo beesha caalamka lagu aamina ma qabo made iyo sheekada warnimaya waxa la yiri qaynuunka qodob aan ku ool ninkii qorsheeyay waa qaldaan warmaya waxa la yiri siyaasadu ninkii qaawiyaba waa ku qaraxda qaynuun ninkii gafayo gururta gaasir waaye ninkii gafayo gururta gaasir waaye war madaysaaqow ma garoorka labta anagu dhaydan cabnaaye warnimada war ma haysaan warkii hore war soo dhaaf New York waxa ku kulmay madaxweynaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar Abdi Fattah al-Sisi laazim yamshi ma maqlo imay isaga waranu raad ma dhageysana maqal wariya war indhaadagi galka ayaa wada Sisi New York dad kula kulmay idaacadna ma dhageysto waxaas inaadeg waa dhaafeen war fallaarta Kalamaan foolka hayga mudin aniga tilaabo qaaday madaxweyne Sisi wuxuuna isu keenay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Ahuri wuxuuna yiri miiskan uga wada hadla
waxa idin dhacayo isku haysataan war cabdifitaax asiisi ma hadduu keeno baddiinna kenya siiya wallahi inaanan ka yeelayn haddaanan ku bannaan baxayna madaxweyne afrikana noo ahaan maayo saacaddaa laga bilaabo warhangoolkii galmudugow taayar walaaga ha gubi korna ha gubni hata binaanbaniinka ilaa midolan ku walisaya ka dhagansanoy aniga waa fahmay madaxweynaha masar ujeedadiisa wuxuu rabaa webiga niil in loo dhaafo baddeenana uu kenya siiyo ka yeelmayna wallaahuna ka yeelin banaanbaxan haddaa cilaaminaya hala soo baxo war naga tag banaanbixii xildhibaan fiqi uu cilaamay cid soo baxday ma lehe war naga tag xildhibaan fiqi dadkii qaraxii sooba ku baaba'ay buu matalaaye yaa banaanbax ugu soo baxaya war dad waalanaatiina banaanbixiina iyo balaayadiina ta naga dhaaftaanna dhegaysta shirkaa saddex geesoodka ah madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya iyo madaxweynaha masarna waxaa ka soo baxday oo lagu heshiiyey xiriirka labada wadan in lagu soo celsho siduu ahaa bishii febraayo guddina la sameeyo xaqiijiyo soomaali iyo kenyaati ah kiiska baddana loo daayo maxkamaddii maxaad la buuqaysaan marka war xanta waxay sheegaysaa waxa laga wada hadlay inay baddu ka mid tahay waryaalahan adeer war ma haysaane madaxweynahayagii muuse bixi cabdi war ictiraaf miyuu hele war adeer ictiraaf weligiiba u haystay naga dhegayso madaxweynaha kenya ayaa wuxuu ka codsaday inuu ku taageero arrinkaa badda markaa adeer muuse bixi wuxuu noqday nin asalkiisii hore uu soomaali dhaba u yahay markaa wuxuu ku yidhi adeer anigu bad soomaaliyeed ku siin maayo adeer kuwan aad sheegayso geelayaga ayaa wada daaqa markaa adeer hadday qaranka somalilan aqoonsataan sidaasunbuu idin taageeri lah nimayoani waxaan la yaabi kenya riya may ku jirtaa mase ruumay soo cabdi ra'yigeedba waxaan ku qiyaasi aqli ruwac iyo maskax ruujinoodi warniyo kuukuyaba waaba u dhammaatayba kor hadduu banaandirigii ku gabayiyo warwar ma haysaane ciidamada amisom baa waxay tageen shabeellada hoose tuulooyin ku yaalla waxaana la yidhi dad bay inta soo qabteen ay qaarna dhabarka uga istaageen marka waxaan soo xasuustay dhaayaha waxaan saharnay ee dhacay ee soo joognay dhabbacaa dad loo jiifiyoon dhimanno noolayne oo sida dhabbihii loo kormaray dhabarradoodii war waxaa la yidhi afrikaan nasanayaa inuu nugu dul noolaado naadiga shaqada noo hayo waa nasiib xumo wargeeka may baa la lahaayay guddoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida jenaraal doctor shuute usuoka koo'ay maalin dhowayti meeli ciidanka gamtilankaroog sidii iilsaliid yamay baa laaray bahal ilaahay ka goha ah miina elandhiki rabbul aalamiinkana hariistis gordaasana ka badbaadiyay dadkale laakiin ka gohi war adeera ku dhuuyay maceel saliidaa yeelateen war ceelashii saliidda sacuudiga mar hore la duqeeyey war shuute yuu suuradulmaa'ida ku soo dul akhriyey markuu soo socday war hangarahagan dhigaha ka kor akhri war shuute warka mahaysaane wuxuu yidhi askarigii qorigiisa al-shabaab ay qaataan isla goobta looga qaataan ku xukumaynaa weliba xukun dil ah warnimayow ciidankii maalin dhowa lagu baabiiyey ceel saliid askarta meesha dagaalku ku qabsaday war moog bay ahaayeen laakiin in qorshaha rag shabaab wax la wadaahay sameeyeen baa la qiyaasay waxaana ku caddaynaysa taas baabuur rasaas iyo saadkii oo dhammaystiran u saaran yahay oo booyaddii biyuhu ka mid tahay oo kaalay iska qaada ah oo wax taliyaalu aysan joogin oo aan laga dejinoo raran arrintaa waxaa ii soo baxday inaysan caadi ahayn waxaana la yidhi midba shaar ha qaata iyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan horta baabuurtu ma istaarnaayeen haddaa maqasho ii wad ahaa warnimayahu ciidanka in la shirqoolayo aniga waxaan ku ogaaday bakoolni mas-uul ah ayaa ciidan la hadlay wuxuu yidhi tayeglow ayaa noo ballanna yeeglowta miinanka garsanaytay shabeellada hoosena nin baa ciidan la hadlay jannaalaa noo ballanna ayuu yidhi shabeellada dhaxana nin baa ciidan la hadlo wuxuu yidhi aadaya baalaa noo ballanna hiyana mida ciidan la hadlay oo wuxuu yidhi maqokori ayaa noo ballanay inaan furno waddada xidhiidhisa iyo inaan xanimaadta ka qaadno buulabarde gadana ciidan ayaanta lagu daldalayaa taliye la hadlay wuxuu yidhi bu'aalaa noo ballanna galgaduudna nina ciidan la hadlo wuxuu yidhi ceelbuuraa noo ballanna marka anigu waxaan la yaabanahay weligay ma maqal ciidan la sheegayo meeshay u socdaan marka macadowgaa loo sii degaya oo la leeyahay miino jidka sii geliya ma wada shaqaynaa jirta anigu mooyi war ballankaas ballanaa ka horreeyey saraakiil xaakadu loo ballantay wey war adeera qoladiinna gulluudii miyaa isu qalintaraysaan war niman tuuga ayaa hadda ka hor sacay soo xadeen waxay nin yidhaahdeen noo qal ninkiina hal kili ayuu ka xaday saci oo qalay markii ay weydiiyeenna
wuxuu ugu jawaabay yaa loo sheegayaa saca laba keliyood leh war ma haysaan ciidankii aw masuur waa la qaramiyey waradaan idin kala garan mayne guulaysta uun warani gobolka banaadir bac kasi waa laga wareejiyey jug kasi ayaa lagu wareejiyey ciidanka birmadka booliska war taliyihii booliska bac kasi madaxweynuhu niyo ku raacni nin waalna tahay war saadaq intuu maqnaa miyaa la gaaday war kii bac kasi hadduu maqan yahay kii jug kasi yaa joogo war waxaa la yidhi jeedalkii ku dhacay johnson weli juuq kamuu odhan jaciirtaan karine xafiiskaba inuu jooga ma ahayn war ra'iisul wasaaraha britain wuxuu daawada u malaynaa muuqaaladii ra'iisul wasaaraha soomaaliya markii la doortay horay uu ka fasaxay baarlamaanka war ma haysaane waxaan dhegaystay barnaamijkii haaruun macruuf ee galka baarista waxaa lagu sheegay barnaamijkaas gabadhii gobolka banaadir isku qarxisay waxaa la ogaaday adeerkeed inuu yahay madaxa canshuuraha al-shabaab ee gobolka hiiraan hooyadeedna ay taageerto xarakada weliba nin hadda ka hor gabadhaas ka soo doontay waxay ku tiri nimaan baaruudda al-shabaab ka soo carfaynin gabadhayda guursan maayo gurigaaga alla bi ma baaruudaa soo carafta xaggee ku aragtay baaruud carfaysa warnimayo meeshaas waxaa ku jira 10 ah in ragga muddo badan wax abaabulaan warnimayo war ma haysaane degmada yakshiid jungal iyo suuq bacadi meelo badan ma dhibaata ka taagan hal tacad baa la isku dilayaa waana la isku dhacayaa war yakshiid beena ka sheegin nin odaya oo gargaduudan oo rijal badan laga qabay oo qurba joog ahayn gudoomiye ka ahay war oodiya wala hadlaay mayka arn aan hel aasi wala hadlaay la kaari war waa halka odayo degmo maamulo kuwa kale ilmo yar yar baa madax ka macdoogaad ku xumeynaydiin marka war adeer kuwada cirna ma joogaan dhul lama joogaan war qowdhina warkaada warka dibad way lama gaarin maxaa noo dhax gashaa war waxaa la yidhi soomaalida naf iyo maal fikrado horay u naafeeyey iyo niman ishaysto sharciga nabaya mooyaane haddaan ruux ka naxayaa hijirin waa nasiib xume now cidlaa iyo waxaad muran ku noogtaanba adinkoo isnacabbay bulshadu idin nacaysaaye haddaad duul nadiifiya tihiin madax nidaam suuban qofkii maanta noolaa barraa naxash la saaraaye nuuxnuuxsigiibaa dadkaa nugul u diideene niyadda ha ka sii jebinina nuursha hadalkiin war ummaddani niyad ma hayseena dhegayso baarlamaanka soomaaliya 4 bil baa la rabay inay shaqeeyaan kalfadhigii shanaad 4tii bil waa isfasaxeen jeebkooda 2 bil ee fasaxaana way qaateen oo loogu talagalay haddana maanta 27 inuu furmaa loogu talagalay mana furmayo baarlamaan goormaa laga maarmo oo warar iyo gaashaan laga dhigay war jawaare markii xilka laga tuuri ay baarlamaan u dhamaatay war yaa xildhibaan waxaa qaado miyaadan maqal war macarabtii yuhuudi la dhexdhexaadin karo way dhexdhexaadinayaan war anigu waxaan balla yaabay degdheeraa qarafaan ku haystaa la yidhi soo dhisidda maamulka galmudug qarafaan baxaafuu ku qabsaday ha lagu qabsado war in baarlamaan jirin waxaan ku ogaadaba xildhibaanada qaar ama qurbaha iska dhiiba nidaam kalamaan nidaam war jooji waxaas waa la diiday dalkaani dawlad kama maarmo war sharci haddii la waayo dembigu waa dukaamada la gato war dastuurka aan ku dhaqanna war dukaankeena ma gadeen war amaana siiniyo war qoriga naga daa war qoriga naga daa dawladaan rabnaa war nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aali ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino